kulanka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ay ku magacaabeen taliyaasha laamaha amniga ugu sareeya waxa stuudiyaha magaalada Muqdisho ay kula sugan Professor Amador Hassan Sheikh Ali Nuur oo kamid ah aqoonyahanada bulshada Soomaaliyeed oo jeclaan wax badan ka weydiino isbedelka ku yimid ciidamada oo dabcan ama magacaabistan si guud oo jeclaan wax badan sida ay ka bedeli karto ama waxa ku soo kordhin karto xaaladda amniga dalkan ka jirta marka hore aan soo dhaweeyo Professor soo dhaweeyo barnaamijka oo dheer aad baan kaga mahadcelin waqtiga quruxda badan ee sida aad u aqbashay casuumaadina Professor waxaan jeclaan wax ka weydiino dabcan saacadii ugu dambeeyay ama xilladii ugu dambeeyay ee maanta waxa jiray isbedelo ku yimid laamaha amniga ee ugu sareeya dalka dabcan xaaladda amni ee dalka ka jirtana waad ka warqabtay arintan si guud sidee kula muuqata isbedeladan yimid bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka waxaan rabaa inaan dulmar kooban aan ku sameeyo labadii sano ee markii la soo dhaafay iyo si u dhaceen magacaabida taliyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed shantaas laba sano ee bar waxa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu yeeshay shan taliye ayuu yeeshay macnaha 30 bilood ayaa shan taliye xoog soo martay taas oo ka dhigan in 6 biloodba hal taliye uu jiray dabcan marka hore ognahay General Bood baa joogi jiray General Bood waxa lagu bedelay General Jamcaale waxa lagu bedelay General Gurud waxa lagu bedelay General Naqarshe waxa lagu bedelay General Udawa oo maanta loo magacaabo dabcan wali madaxweynuhu ma sheegin oo golaha wasiirada waxay leeyihiin soo jeedin magacaabada madaxweynaha askala sida uu qabo qodobka 9aad xarafkiisa A ama C ciidanka booliska Soomaaliya asana wuxuu yeeshay 4 taliye sidaan ognahay Maxamed Sheekh Ajoog jiray General Saacid la keenay General Bashir la keenay maanta mid cusub la keenay oo marna aha jiray nabad sugid marna military ciidanka marba meel soo lahaan jiray shaati 4 taliye maraya ciidanka booliska taas oo ka dhigan 7 bilood iyo barkiiba ayagana inay yeeshteen hal taliye hay'adda nabad sugidda qaranka ayaa ugu yar oo ayadana xasuuskooda 4 mar ah oo mar oo xukumayay General Gafo iyo General Bashir maxaan ku dhahay Sambalulshi iyo Hussein oo soo maray iyo ayada nafteeda laba mar oo mar oo taliye ku xigeenka oo wasoo taliye iska ah iyo mar hadda taliye laga dhigay iyaduna nafteedu waa ayadana waa 5 bilood waxay ka dhigan tahay macnaha 6 bilood hal mar ay taliye yeelatay kan kale oo loo dhiibay asluubta dabcan asluubta wax weyn ma qabato waa kii saddexaad laakiin dadku waxay daneynayaan waa taliyaasha kale xoogga gaar ahaan dadku waxay daneynayaan sirdoonka iyo arrimaha sala daneynaya sida iska caadiga ah marka hadii la fiiriyo sida caadiga ah ciidamada ama nimankan taliyaasha ah shaqadoodu iyagu marka laga hadlayo amniga qaranka iyagu waxay kaga jiraan technical level ama technical position ay leeyihiin waa dad ah howlfuliyaal marka su'aashu waxay tahay isbedelkan maxaa keenaya oo jananadan maxaa maalinba janan inta loo keeno loo dirayaa macnuhu waxay tahay shaqo ayaa la rabaa inay qabtaan marka shaqadii ayaan qabsoomay shaqadii markii qabsoomayso marka su'aal waxa ah marka ma jananada oo iyagu iska leh technical level qaab farsamo iska leh miyaa dhibaatadu ka socota oo hawshu ka socolaadahay mise leadershipka ama hoggaanka dalka oo ayagu iska leh strategic level siyaasadda iyo dejinta qorshaha qaranka iyo sida amniga qaranka dalkan uu noqonayo nimankan taliyaasha ah iska malaha ee waxa iska leh hoggaanka dalka iska leh laakiin hadii hoggaanka dalka asagoo iska joogaa marka janan buu keeni mid kale bedeli taasoo ka dhigan jadanadan waxaan anigu u fahmaa macnaha marka General Bood la bedelay oo General Jamcaale la bedelay oo Gurud la bedelay oo Naqarshe la bedelay macnaha hawl raba in la qabto ay qabo waayeen waa ilaa si kale macquul ma aha 6 bilood inuu nin taliye ciidan ahaado marka shaqo la raba inay qabto ay qabo waayeen laakiin su'aal waxa ah xaqiiqo ahaantii ma General Jamcaale iyo General Gurud iyo Naqarshe ayaga miyaan qualified ahayn oo aan niman shaqadooda ka soo bixi kara ahayn markii ay joogto technical level qaab adeeg ay joogto mise hogaankooda ayaa waxuusan lahayn strategic levelki siyaasadii dalka iyo guideline-ki siyaasadda iyo waxay ku shaqeyn lahayn ayaa maqan hadii marka ay dhacdo marka nimankan inay iyagu ay yihiin niman oo saraakiil sax aan ahayn oo aan shaqadooda ka soo bixi karin hadii yihiin waa in la bedelo laakiin su'aashu waxay tahay hadii uu Naqarshe uu yahay general qualified ah General Gurud uu yahay general qualified ah ama sax ah haduu yahay General Jamcaale haduu general sax uu yahay General Bood haduu yahay general sax haduu yahay
laakiin la shaqadii la qabo waayey eedda ayaga iskale mase waxaa iskale cid u dirtay marka ayaga waa la bedelaa laakiin cid u diraysay oo iyada dhinaceeda shaqada ayna ka qabsoomin lama bedelo hayo saas darteed waxaan sugnaaba waxay tahay markay 6 bilood ka bacdina general Udaway asgan in la bedelo لأنه جنرال أدوي كما في عنا جنرال بود جنرال جمعالة جنرال جورود إن دقش كما في عنا عقلك مركا أما leadership أما هجانكو وكي بود لشقيناي وكي جمعالة لشقيناي وكي جورود لشقيناي وكي دقش لشقيناي أدوينا كيبو لشقين دونا نتيجتنا وحيكون ما دون تاسيد يكون كل ما ذين مركا وجدان I don't say إن أنا مرة إن الله واحد صباح مجران but it seems to be يعني أساس لك مقطع لأن أنت صوت جنرال واللي لحب لوجوجي ما بدي عكرت إني فاشلين سيد الأوجي هاي جنرال إن دكر شو وحوي هاي وحال شيء قد قال في الصومالي توبيا 77 بلد جيسي الجوسي هذا هاي جنرال بوت he was the strategist كو أوقف عن صومالي وكمدها جنرال جمعالي نو كمان دوسو هنجري all these are qualified generals هذه مركب qualified generalists if they fail to achieve the strategic objective I don't know how the waxay qabado aan ma garanayo haddana kuwan kale oo kale haddana maxamed sheekh boolis military aajir saacid waa leeqaan in bashir waa leeqaan okay hadda oo hadda oo ujir oo qabadoono shaqo maxamed sheekh qabo waayo saacid qabo waayo oo qabo karo bashir oo qabo waayo hadduu qabadoono I don't know this guy I don't know him ma aqaan waxa ku soo hartay hay'adan nabad sugidda qaranka actually hay'adan nabad sugidda qaranka shaybka ay lahayd iyo faceka ay lahayd waa la baabi'iyay almost waa la baabi'iyay waa la kala diray marka si cusub loogu dhaqmaha la dhahay shaqada ay qabato iyo meeshay ku socotane waxay u baahan tahay in wax laga ogaado laanu hay'adani iyadu markaan ma aha hay'ad oo ka shaqeysa technical level ma aha waxay isu bedeshay hay'ad ka shaqeysa strategic business ay ka shaqeysaa marka iyadu waxay u baahan tahay marka inaan galno ciidanka asluubta Soomaaliya isugu wax weyn ma laha suuqa dameelyan meeshaan xarun bay ku xagga xabsiga dhexe joogaan wax weyn oo hadda iyagu dalkan ay amaanka ay ka qaban karaan ma jirto ayaga amaankooda la waardiyaa marka 10ka aan ka barakarna marka wuxuu yahay 10ka aan ka barakarna wuxuu yahay in 6 bilood la bedelo taliyaasha ciidamada waxaan ka fahmi karnaa macnaha in wax qaldan yihiin wax baa qaldan laakiin maxaa qaldan wixii qaldanay waxay ka muuqdaan nimankaas waa niman qualified general Bood nin la yaqaan ahaa جمعال من اللي يقانوها إن دقش إن من اللي يقانوها السراكيل شهورية ملترية الصومالية وبعد دي أن لهن سراكيل وبعد ده لين هذا كون وتبرك في عيني كمية أهاين وعيدا كان وقف في عيني كمية أهاين مركا وحي كانوا وين يعني كانوا وين ما لحب نك لحب العيدا لودي بجدنا جمعال وكلو كمان دوس لحب العيدا كإن لودي ولحب التلية هذا وحبكم بالسعر كريم مركا وحام مقطع معناها وحي أو ربي أم أو قبكري يا وحا إسكهوري ماذي iyo wixii la damacsanay marka saas loo bedelay waxa kale oo dhici karta idane isbedelkan iyo waxaan in aan loo sameyn in lagu horumariyo amniga qaranka loo sameeyay in dad gaar ah loogu sameeyo promotion oo dad gaar ah magac loogu sameeyo iyo maqaam loogu sameeyo si ay awood balaaran oo ay wax badan ku maamuli karaan ay u yeeshtaan ama dad yani adiga sir raadi looga yahay ma aan hadda ma muuqato meeshan kama muuqato ama nimankaani kama muuqato inay hadda yihiin dad oo la leeyahay waxa lagu soo xulay karti dheeriye iyo aqoon dheeriye ayaa lagu soo xulay oo ay dadka Soomaaliyeed dheer yihiin ayaa meeshan kama muuqato gaar ahaan hay'adda nabad sugidda qaranka waa u jeednaaba ida dadkii nabad sugidda ida total id waa maqantaba dadka ka shaqeyn jiray waa maqan yihiin marka waa isaga jeedaa howlahan dad gaar ah loogu talangalay in loogu sameeyo waa maasanta toore aan ka dhax galo dabcan sida quruxda badan ee daawadayaasha ula wadaagtay xogtan koobanna waan kaaga mahadcelinaya toore haddaan ku weydiiyo tusaalahan xaaladda amniga dalka waad la socotaa halka ay marayso iyadoo dhacdadii ugu dambeysay ugu darreed ay ahayd 24 bishan soo dhaafno gudoomiyihii gobolka ama maayirka gobolka aan adoogay magaalada Muqdisho oo xafiiskiisa ama halkii howlka uu shirar ku qabo jiray ti dabcan xaaladii ka dhacday ka warheedaan yani maxay kula tahay xilligan maxaa ku soo beegay in iyadoo xilligan la joogo taliyaashan la keeno oo dabcan magacaabistan ay dhacdo okay arinta aad sheegtay iyo arinkan isku mahira hadii arinta inta baaritaan lagu sameeyay baaritaan sax lagu sameeyay ay soo bixi lahayd daldalool ay leeyihiin kuwa xilka laga qaaday markaas waxaan dhiilayn nimankaas xilka waxa looga qaaday shaqadii ay lahaayeen ay ku fashilmeen I don't think so inuu hadana general inda qarsho inuu xarunta gobolka Banaadir inuu waardiyo wax shaqa oo kulahay ma jirto asiga military waxay qaabilsan yihiin amniga dibadda qaabilsan yihiin laakiin haday kuwa kala jireen oo shaqadooda ku fashilmay hadii dadka loo ma sheegin oo lama dhihin nimankaani shaqo ay qaban jireen ku fashilmeen lama dhihin waa la bedelay aan waxa kale oo muuqata sida aan hore kuugu sheegay
dad la rabo in ayaga la dalacsiiyo ayaa la dalacsiinaya ama meediyaha Soomaalida oo maanta siyaabo kale iyo qadiyado kale ay hot yihiin ayaa la rabo dadka indhooda in laga soo jeediyo si kale loogu sameeyo dadweynaha news loo sameeyo marka qaarkood waxaa jirta dawladdu waxay sameeysaa ama dawladdu ay sameeyaan waxa la dhaho public consumption yani dadka la raba in lagu mashquuliyo oo arrimo kale iyo meelo kale iyo hawlo kale socda aysan ka doodin oo news in loo sameeyo waa dhici kartaa laakiin I don't think so waxaan inay wax calaaqo leh leeyihiin oo toos ah ee wixii ka dhacay gobolka Banaadir waa tahay taliyaashan dabcan hadda la keenay xaaladda jira maxay ka qaban karaan isleedahay caqabado badan ayaa runtii hor yaalla marka loo fiiriyo sida xaalku uu yahay maxay qaban karaan isleedahay markaad fiirido yani iyaga laftirkooda backgroundkooda ama shakhsiyad ahaantooda maxay ka qaban karaan xaaladda taagan okay sida aan hadda kor aan halkan ka sheegay TV-ga aan ka sheegay iyo kuwa kale aan ka sheegay Soomaaliya hadii la rabo nabadgelyada wax laga qabto in janan lagu bedelo nabadgelyo wax ka qabasho ma aha waa in siyaasadda wax laga bedelo laanu amniga nimankan ciidan ka shaqeeya sida aan ku sheegana waa technical level nimankan waxba loo diraa waa askar waxa la dhahaa xaggaas ciidan geeya xaggaas ciidan ka qaada wax macna oo ilaahay lama arko waxa macnaha leh waxa way strategic level ninka ciidanka ninka ku adeegaan oo amarka siiyay ayaa waxa la rabaa inuu keeno aragti midaysa dadka Soomaaliyeed oo ah aragti siyaasadeed aan waxa la rabaa dadka Soomaaliyeed waxay markasta u haystaan in laga hadlo amniga iyadoo laga hadlin siyaasadda maya waxa laga hadlaa siyaasadda marka siyaasaddu ay saxnaato oo dadka Soomaaliyeed ay wixii heshiis ku yihiin la keeno markaas amnigu sax u noqona laana amnigu inuu halaabo ama uu amnigu qalaas oo ka jiro waxa u sabab siyaasadda ayaan heshiis lagu ahayn marka tusaale ahaan hadda Soomaaliya kale heshiisa u keenaysaa dadkii magaalada Muqdisho tusaale ahaan xaalkooda u jeedaa gobolada u jeedaa Hirshabeelle waxa laga dhigay disable galmudug waa la kala daadiyay koonfur galbeed wax ka jira male bay dhabax maxaa dhaa Kismaayo xaalkeedu waa u jeedaa Puntland dawladda waxay tiri meeshad ka dhixiysan ka baxa qaybta kale oo waqooyi galbeed ay leeyahay maqneed marka this country is a breaking country waa wadan oo broken oo kala daatay politically siyaasad ahaan marka lama rabo inaan waqtiga isaga qaadano asgar iyo tuute iyo qori iyo buntuq iyo beeba iyo maxay dhahaan cabdibilo orday iyo waxaas waxaan rabaa waxaan xagga iska dhig dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa inay gaaraan political agreement heshiis siyaasadeed oo waa maxay dalkan dib u heshiisiin isku wacid isu keenid walaaleen istuugid kaamalihi igamalihi saas ayaa loo keenay oo loogu talagalay dalkan amaankiisa in lagu sugo aan horena waa u sheegay haddana marka aan ku soo celay cid rabta hadii aad rabtid inaad meel maamushid laba wada bisa ku furo wada saddexaad ma jirto inaad xoog leedahay oo taangiyo iyo diyaarado iyo ciidamo aad haysatid oo waxa ku hor taagan aad xaaqdid oo bad ku shaqtid oo qodob ku furan oo tiraada aniga I'm the state aniga ayaa qarankii ah oo dadka amar siisay haddaadan kari karin waxa la dhahaa markaas fees approach ama win approach la dhahaa waa walaalow iyo kaamalihi iyo dibu mataqaanaa dibu heshiisiye ama waxa lagu dhaho political compromise waxa la wadalay inay noqoto hadda dalkan marka maxaa ka jira dalkan waxa ka jira marka dhibaatada ka jirto amni la'aanta keenaysa waxay tahay nin xoog leh oo wadankii qabsan kara oo ciidan iyo dawladnimo iyo massive ah ma jiro isla markaasna ma jiro hoggaan ma jiro dhahaya war waxaan waa naga dhaxayaan ee sukaanya keena walaalayaal aan gacmo isqabsanna ma jiro marka meesha dhaxda ah ayaa waxa ku dhumay amnigii qaranka oo maxay dhibaatada ka tagan tahay adaa waxa lagu dhahay adaa madax marka adiga madax lagu dhahay marka inta adigu isma miisaamin oo isma weydiin madaxa taalay dhahe inteen la egahay xoogayga isma adag weydiin waa iska dhaqaajisa marka waxaan leenahay dalkan qaranka wuxuu u baahan yahay madaxdu inay ismiisaamaan oo intay muraadatan isku fiiriyaan oo ay qiyaasaan murqahood intay leegiin iyo intay kartidooda la eg tahay ee aynan iska socono sida ay la tahay ay ku socon wadankan sida ay la tahay haday soconayso oo shaqeynayso waa hore ayaa rag hoos u batay ay toodu meel mar lahayd marka wadankan wuxuu u baahan yahay siyaasad u baahan yahay iyo aragti iyo fikir iyo political philosophy maalin kasta in janan lagu bedelo maalin la keeno general Buud laga qaado la keeno general Jimcaale la keeno general Gorod oo la keeno general Indaqarshe oo la keeno general Udawa oo bikri la keeno general Diiri wax ay wax ka bedelisa la marko waxaan soo kornaa saylada waad bad ma santahay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur waan kaga mahadcelinayaa waqtiga quruxda badan